وبندق سوغانيت سوين لوسو أقاسمي وكقبصامي هوتيل كهاسة مقالة برعو وحاو كل مية بقلال كميدا هالدور كهيبادة أولى سوغانتا ويالك وحكراتك صحفيين أقوياهن إيا مسؤولين تأوردك لدوانا كديسان مقالة برعو حانونتا كوبلغة دوغلير وحاو قيمية مقامو يالي قروح دي قطرين تسوغانتا قفنمو سودا مهدي إبراهيم ومد كميد أهوينك هبدا كارك أهوين إسلام مركانا يودر تايها الأبورنمو هوفن وحي هالكان يكسو بندقيسا سوغان ميسان يميد وفريد قلوب تددك دقيسان هيا هذا قبي بريحا وان كتغي هميلا دايدية مهيسينين مانسوين كان هيبدو لهاي هيا شي هدان هابتوان وذا هاقاتشاي موهن قضي سيدي هلبلويل هيغن لغو شاقي موها قوقتي سيدي قاسو هوري هايتا وحو شاقتو مهن بيي هذا الكيس علسوان هاقاتشاي أفرتا مهابتو مردقي هيركا قبايقايقا هدان هوريا ماسدا رقبا هودا كلا هاي أما عن هبايو ترجمهوغن كلابتايدا هيرار بيسكو تشيرايو ويهقلادا هاي hurgumada halkaan uga socdiya nabarka hawdiisa haween baa tusaaleynaya heerka noloshooda hakisbila wanaag farista iyo haybadiyo nuurka marka hore ilbi kula dhashiyo waahankaagiye aamusa walaal bilaahi calaykum marka hore ilbi kula dhashiyo waahankaagiye marka xiga hamuun reeba iyo waahadoodi lahe marna waa haliyay dhala habiyo hooyada sharafe marna waa hankaagii dambiyo horumarkaagiye aniguna hormuud baanihiyo mudan haweeneede dunidani dadalana dayac iyo dhib badana daldaloolo badana dooqa aadmi falana wax dulaysan badana deelqaafku simana dembiyadu istabajoog daacadnimadu koobna ruuxa darajo gaadhe talihiisa raacde dembiyada ka maagana dadku faaqidaadiyo dacwareen la jecelaa sidoo kale sawda waxay halkaasi ku soo bandhigtay intii ku jirtay badweynta suugaanteeda maanso qalbiyada iyo dibnaha goobjoogayaasha qosolka iyo farxadda waday marqura badashay abahayga caliyo garashiyo aqoone igu soo gardaasho diin lagu galladayo gabankii idhalayo wadnihiyo garkaygo halbowlaha gutiiso sow aada galabu geeridaadii maalmaqal gariirkii wadnaha galay ma gilgili naftaydii qalbigayga gaaxiyo kunti hore wixii galay aabasow kamay guri aabasow magaagixi geeridaadi lagu timi dadba way gubaysay aabasow imay gubin welibana imay gocan god madow iguma ridin gaar ima naafay wadnahaygi galo badan geesinimo ku noolaa daqdib guunimay gelin gurigoo gigimano meel gaari ay jirin aabisow gadaadiyo gobashaadi maan arag ilmadaydi gabax tidhi gondahayga may qoyn weli sowma gobolaha aabageeridaadii galatii madoobay gudcudii horseedo dhaxan aan go-ayn baa feedhahay gelayso gaababaana filanay godad iyo daloolaa soo wada guduuto وعشد سيادو آبقى فريقو آبقى ردادي قلتي مذوبي قلبي وقبشة دقاء ليكايو كربكي بدايو آبقى وقضمو آبقى ردادي
garto aqoontii garabsaar malihino hayigaadadiis iyo garabka igu qaadiyo gurgurshaagi waayo koorkooli gaariyo gacanqabasho dheeriyo aabba gaaridaydiyo yaa ku gaari kara iyo kalgacayl iskaladyaan gala taaban waayo u go'doomay awga aabbahayga caliyow taladiyo guddoonkeed guntadoo warkaagii gowsdambeedka geliyo waxayna goobtaasi ka hadlay oo bogaadayay suugaanta iyo halkudhigyada ay adeegsanayso Sawda Mahdi mas'uuliyiinta ururka Sidegmaal oo ah ururkii soo qabanqaabiyay xafladani. salaanka bacdi runtii caawa waxaynu qaadanay cawaysin aad aragtaan saacadaynu joogno iyo sida wali aynu u soo fadhino ee aynu u liqi kari la'anahay suugaanta ay Sawda Mahdi inala wadaagtay waxaan jecelahay ugu horreyn inaan u mahadnaqo dhammaan cid kasta oo af iyo adinba ka geysatay abaabulka iyo isku dubaridda madashan ay ugu horeeyaan abwaan Saleebaan Cabdi Cabdilaahi abwaan Cabdikariin Yuusuf Aadan abwaan Maxamuud Maxamed Xaaji Ibraahin Maxamuud Jeesto iyo Sawda Ibraahin oo iyadu bandhiga ku casuumnayd runtii ka urur ahaan mar walba iyo madal walba waxaa naga go'an inaanu hortiina keenno dadyow ay suugaantoodu idiin cuntanto isla markaana murti micna samaysa oo midha reebta idinla wadaagta ka urur ahaan waxaanu ballan qaadaynaa inaanu garab istaagno bahda hal abuurka da'da yar Sawda waxaan maleeyayaa ugu horreyn waxaan leeyahay waatay shakhsi horumar iyo runtii ilaahay hibo isugu daray dadkana uu ilaahay ugu dhex abuuray dadnimo iyo duwanaag iyo dabaldhaqan intaba waxaan marag ku ah bulshada martida aa u tahay caawasay usoo ajireen baaqaagii wanaagaaga ayay ka markhaati kacaysaa. isku soo wada duuba xafladani ayaa noqotay xafladii ugu horeysay ee ugu dadka iyo haldoorka badnayd muddooyinkii bandhigyada kala duwan lagu soo qabanayay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer isla markaana ugu hadalhaynta badnayd muddadii la sugayay xafladaasi. Waa Mahad Ibraahin Aadan Mahad Soomane, Kalsan TV, Burco.